maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta Isniina waxay xukun dil toogasho ku fulisay laba dhalinyaro oo lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab. Labada nin ee xukunka dilka lagu fuliyay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray Canshuur Cismaan Abuukar Cumar 23 jir iyo Maxamed Cali Boorow Aadan 25 jir, kuwaasi oo ku eedeysnaa inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab isla markaana ay ka qayb qaateen weeraro iyo qaraxyo laga fuliyay magaalada Muqdisho. Labada nin ee xukunka dilka lagu fuliyay ayaa horay maxkamadda ciidamada dil toogasho ugu xukuntay, hase yeeshee racfaan ayay ka qaateen, balse mar kale ayay xukun dil ku riday maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida oo saaka ku fulisay xukunkaasi. Dhamme Muumin Xuseen Cabdullaahi ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa warbaahinta u akhriyay xukunka. Bismillah, taariikhdu markay ahayd 13 bishii 3 2019 waxay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay eedeysanayaal. 1. Canshuur Cismaan Abuukar Cumar Asad ina Faadumo Aadan Cismaan 23 jir ku dhashay Shabeellaha Dhexe. 2. Maxamed Cali Boorow Aadan Cabdixakiin ina Xaawo Cawil Mursal 25 jir ku dhashay Baay, kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dembiyada kala ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka, qaran dumis, dil bareer iyo xasuuq dad shacab ah. Eedeysanayaasha waxaa lagu eedeeyay inay fuliyeen falalka soo socda. 1. 15 bishii 8 2017 waxay weerar ku qaadeen gaari ay saarnaayeen hal qoys, waxaana ku geeriyooday marxuum Maxamed Xasan Cabdi Cawad. 2. 27 bishii 9 2017 isgoyska Via Roma ee degmada Xamarweyne waxay mar kale ku weerareen gaari ay saarnaayeen labada marxuum ee kala ah. 1. marxuumad Canab Cabdullaahi Xaashi oo ahayd xogayihii guud ee ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed. 2. marxuum Axmed Jaamac Xirsi, weerarkaas oo sababay geerida labada marxuum. 3. 9 bishii 11 2018 waxay qayb ka ahaayeen weerarkii lagu qaaday Hotel Saxafi, weerarkaas oo ay ku geeriyoodeen 32 ruux. 4. sidoo kale 22 bishii 12 2018 waxay ahaayeen abaabulayaashii labadii qarax ee ka dhacay tiyaatarka qaranka iyo daljirka Dahsoon oo ay ku geeriyoodeen 27 ruux. taariikhdu markay ahayd 20 bishii 3 2019 waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah. labada xukun sane ayaa xukunka maxkamadda racfaan ka qaatay 6 bishii 4 2019. maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa mar kale dil toogasho ku xukuntay 4 bishii 5 2019. maanta oo ay taariikhdu tahay 5 bisha 8 2019 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa. wabillahi tawfiiq.